السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا ومد إسلام كأكو حرن جنال كيجا وهرين مركل لبعض ما أنتها معها مالين فرحدات مالين كفتن مالين محلها يعني ومد الصوماليات قصل يوحلو سوق بيكرم إن كستو مدبدا عام قناع وحاربها كان إن تحسي أقدره دمان ومد الصوماليات waxaa la inaga baxay maanta walaalkeen saaxiib qalbi wanaagsan ummadda ka farxin jiray waxyaabo badan ee madadaalo ah ummadda u soo gudbin jiray walaalkeen Abwaan Geesi oo waayadanba ku xanuunsanaa magaalada Nairobi samri iimaan Allah naga siiyo dhammaanteenba kullu nafsin daa'iqatul mawt naf waliba waxay sugaysaa geeri waa xaq geerida dhammaanteen baa wax ina wada sugaaya waa wax lama huraana hadduu dunida ay cid baaqi ku noqonayso waxaa baaqi ku noqon lahaa suubanaheena nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo khayru khalqillaahi ahaa dunidan inta bashar la uumin ama bini aadam la uumin ka hor magaciisa sii uunaa oo waayo furaha jannada lagu furaayo waa شهادتين كنا وحكم ذا مقع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمنا هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحيابه رسول سوري وحكم ذا من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وحا مهمة ماتا كومنتي قصلي بودي انتبه وكسر تكتب ومدى الصوماليات ما أنت سوى ذا جيرة يا قلبي وناجا دعاكو ده هنتا هينا لما أنت هم بقى سوى دعينه وايو إذا جاء أجلها لا يستعقلون ساعة ولا يستخدمون مرة بينو فيديو كان سيرة ديراد فيديو وان ماكو إدين سو قارايو وحلي يعني قليل إيتاهي لما أنت هم بوحنا قودة تغايا dadkii jannada ku wada kulmo inuu Ilaahay naga dhigo waxaana ka soo xigtay videogan ama la soo gaarsiiyay walaalkeen si ka Soomaali muddo saacad ka hor anna hadda taxsidii waxaan jeclaystay in ummadda Soomaaliyeed intii ugu xiran aan gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullah zakina ila si daawada dhamaanteen baa wada duceyno sharaf iyo karaamo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام aadbaan u naxsanahay waxaan dareemayaa wax aan halkan ku soo koobi karin waxaan dareemayaa naxdin aad u weyn waxa caawa go'ay Abwaan Geesi wuxuu ahaa shakhsi aan soo wada ceeshnay wuxuu ahaa shakhsi aan wax soo wada qabanay wuxuu ahaa shakhsi wanaagiisa iyo walaalnimadiisa iyo xushmadiisa aan halkan ku cabiri karin laakiin waxba iima tarayso inaan wax ka sheego waxaan kilibkan u duubayaa waxay tahay inaan u tacsiyeeyo ehladii iyo qaraabadii iyo walaalihii iyo saaxiibadii quruxda badnaa oo aniga aan ka mid ahaa oo uu ka baxayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala samir iimaan ha ka siiyo waxaan idinka codsanayaa waan idinka baryayaa oo aan idinka tuugayaa weliba Ilaahay baa mudan in la tuuge inaad Abwaan si qalbiyan ah aad ugu duceysaan ma ahan commenti mana ahan inaad meel wax ku qortaan oo aad ku qortaan Allah u naxariista Abwaan si qalbiyan ah inaad ugu duceysaan Abwaan wuxuu ahaa shakhsi muhiim u ah dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed wuxuuna ahaa madadaaliye maalintooda u qurxiyay bulshada Soomaaliyeed insha Allah bidin Allah karim kilibkaas intaas ku saabsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. Wallahi bilaa aniga Soomaaliga ay qabsan